qarannimada Soomaaliland baa inaga wada dhaxaysa waxa la leeyahay waxa shaqooyin ku yara kala qaybsanaanaynayo marka hore xaydaabkeenu ka wada muhiimsanahay xaydaabkeenu hagaajinayna muhiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin maanta sidii mas'uuliyiintii hore iyo xidhiidhiyihii munaasabadda inoo xidhiidhinayay ay u sheegeen waxaa halkan jooga guddigii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu xil saaray qabanqaabada hawlaha dabaaldega 18 May aad baan ugu mahadnaqayaa marka ugu horeysa wasiirka warfaafinta iyo wasaaradda warbaahintooda fanaaniinta halkan barnaamijka ka soo bandhigtay iyo mu'allifiintii soo sameysay aad baan ugu mahadnaqaynaa si wanaagsan bay u soo jeediyeen munaasabaddan 18 May ay doonayso guddiga qabanqaabadu inay halkan ka soo jeediso waxa rasmi ah oo dhab ah qaran kasta oo jira taariikh nololeed uu ku nool yahay oo ku dabaaldega ayaa jira marka 18 May waxa ay tahay marka laga yimaado xorriyadeennii 60kii 1960kii Juun xorriyaddii la helay ee marin habowday ee dabadeedna halganada iyo dhibaatooyinka fara badan ee ka soo baxeen ee shacabka reer Soomaaliland ay dib ula soo noqdeen 18 May waa maalinta u astaysan qarannimada Soomaaliland iyo dib ula soo noqoshada xorriyadeennii sidaa la ajlageed baa waxa lagama maarmaana inuu qaranku qof weyn iyo qof yarba u dabaaldego hadda iminka maanta waxaynu joognaa wasaaraddii warfaafinta gobolkan geeska Afrika idaacadda raadiyo Hargeysa halkan ka bilaabantay markii horena raadiyo kudu la odhan jiray maalinba suuqa meel la dhigi jiray idaacadda qura ee Nairobi baa ka horreysay in alaaliya inta kale ba iyaga ka horreeyay dawladda gumeysiyadii Afrika soo marin baa badda jiray dawladda Itoobiya ka mid ah marka taariikhda guunka baynu leenahayo kelmadu halkan maxaan ku dhahdayeen maayirku kaydhiba waxay xasuusinaysaa masalan maxaan ku dhahdaye dhallinyaradeenna iminka marka da'diinna meelahan tuban marka la weydiiyo la yidhaahdo ninkii la yidhi hadda waa Hargeysadii dhaweyd ee berigii dhaweyto dagaalkii lagu burburiyey ma garanaysaa ee odhanaya maya ee marka la yidhaahdo SNL ma garanaysaa Xaaji Cumar Askar ma garanaysaa oo guddoomiyihii madaxweynihii xisbigii SNL ee ugu horreeyay xisbiyada ma garanaysaa oo KNUFta Michael Maryamo ma garanaysaa waxay odhanayaan maya laakiin inanka Mareykan ee da'diina marka imika la weydiiyo ee la yiraahdo civil warkii Mareykan goormuu dhacay wuxuu odhanayaa de maxaan ku dhahday intaan xorriyaddii Mareykan 1778 aan la gelin buu dhacay inanka Ruushka marka la weydiiyo ee la yiraahdo tasaariskii goormaa la inqilaabay boqortooyadii Ingiriiska Ruushka wuxuu odhanayaa 1917 baa liinan inqilaabay marka la yiraahdo maxaa Mooska dumiyay iyo maxaan ku dhahday liinan garaad dagaalkii labaadka adduunku bari dhallinyaradiina waxaan leenahay taariikhda ummaddiina barta dadka qaar baan jeclayn in taariikhda la barto ilma aan hooyana dhalin aabana dhalin miyuu ifka yimaadaa dee qaran aan taariikh lahayn ifkan ma jiro marka qaran waliba wuxuu u baahan yahay inuu bilaabo oo ogaado xorriyaddii halgankii geesiyaashii idin dhintay ee xorriyaddooda maanta ku haystaan waa inaad obtirinaysaan hebel marka waxaynu leenahay 18 May waxay xambaarsan tahay taariikhdeennii halganka dheer soo martay shuhadada fara badan u shahiiday sidaa la ajligeed waa maalin qaran oo qof waliba leeyahay xusbi ma leh madaxweyne talada hayaa ma leh mid hore talada hayay ma leh wasiir ma leh xusbi ma leh waa maalin qaran oo aynu guddigan wada leenahay maalintaa qarannimada maxay nagu waajibaa inaynu guddigan u wada dabaaldegno waxay nagu waajibaa inaynu nabadgelyadeeda ilaalino oo qof waliba biliis iyo askari iyo qof nabadgelyada ilaalinaya uu noqdo waxaan doonaynaa guddida magaceeda anigoo ku hadlaya shicibweynaha Soomaaliland qurba joogga haddii ay yihiin iyo dalka gudihiisaba inta joogta waxaan u baahinaynaa in maalinta
18 May 2024 si aad iyo aad u muddo kara qarannimada Somaliland oo muujiyo inaynu ugu dabaaldegno waxaa ka war haysaan heshiiskii gungaarkiisii u dambeeyay weli aan la gaadhin ee la dhammaystirayo MOU-gii Memorandum of Understanding-kii madaxweynaha Somaliland iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia ay wada galeen dalkii Soomaaliya waxay ku riday majnaanad waxay ku riday waali waxay inakana heshiiska inoo diideen madaxweynaha Soomaaliyana wuxuu yidhi ra'iisul wasaaraha Ethiopia maxaa Somaliland kala macaamilaysaa ana 4 saldhig ku siinaya aniga 4 dekedood ku siinaya hadda isaguna uu bixinaya inaka muxuu inoogu diidaya inaku haddaynu qaranka Somaliland nahay madax iyo minjo dad ka xun oo xaasid ka ah oo ka muraara dilaacaya Soomaaliya waxa la siinayo manihin miyaynu nahay hadda mucaawinada layna siiyaa adduun weynaha qaadhaanka bixiya ee u badan adduunyada reer galbeedka iyo dawladaha islaamka khaliijka iyo u badan iyaga waxa la siiyaa 80% in ka badan innakana waxa layna siiyaa 20% in ka badan miyaa dawladda Somaliland madaxweynaha maanta jooga ilaa iyo kii u horeeyay miyaa ka maqasheen calaacal odhanayo Soomaaliya iyo annaka waxba noo qaybinina waxaanu leenahay wixii uu kordhaya iyaga iyo walaalaha kale ee qaaradan Afrika ay ku wada noolnahay waxaanu leenahay Allah idin barakeeyo ayagu inama ogola qarannimadeena ma ogola waxay noo saayiday ma ogola wasiirka khaarijiga oo ninkii wasiirka dakhliga hore u ahaaya oo gafe fara badan iyo arrimo fara badan oo aad iyo aad u liita oo horena u galay oo waxaan soo afjaraynaa 33 beenta lagu maawilinayo ummadda Somaliland waxaynu soo afjaraynaa inakuna 33 sanadood inaan ummadda Somaliland been lagu maawilinaynin waxaynu soo afjaraynaa inay adduunyadu maanta aqoonsi inamaysiinin laakiin waxaynu ogoshahay meel dimuqraadiyad meelo fara badan ama inteeda badan qaaradda Afrika aan ka jirin inaynu inaku nahay waxaynu adduunyada tusaynaa in laynoo aqoonsan yahay geeskan Afrikaynu ku noolahay iyo Afrikaydan ku noolahay inteeda badan inaynu nabadgelyo rasmi ah ku leenahay halkan waxa lagu qabtay xaflad wadalkan la yiraahdo casood hay'adahan dawladda qaaradan Afrika ka shaqeyso arrimaha dimuqraadiyadda ka shaqeeya ayaa waxay doorteen shirwanaha ay qabanayaan in ay ka dhigtaan Somaliland dawladda Somaliland waxay soo weydiiyeen oo qura in la ogolaado inay shirka halkan ku qabsadaan waa loo ogolaado hoteelka ay ku qabsanayaan iyaga soo balansaday waxa la socda oday dalka Nigeria madaxweyne ka ahaa xisbigan waxaan leeyahay ururkan la yiraahdo midowga Afrika loo aqoonsan yahay oday sharafeed arrimaha African Union-ka honorary maxaan ku dhahdaayay ka waxaan ku dhahday elder meelaha ay dhibaatooyinku ka dhacaan la geeyo isaguna uu la socdo khudbadii halka ka akhriyay baa wuxuu yiri Somaliland waxay wax ka soo saartay meelaanay waxba jirin dal burburay dal baaba'ay dawlad jirin dhaqaale jirin nabadgelyo jirin waxba jirin dariiqa dheer baynu soo marnay guushaasaynu gaadhnay mas'uul kasta iyo madaxweyne kasta oo dalka soo qabta taladiisa iyo tamartiisa iyo dhaqaalihiisa iyo nidaamkiisa dawladeed qaybtiisu ku soo daray meel fiican baynu maraynaa hadda imika inta la nagala dagaalamaya waa arintan Ethiopia itiraafkan innaka iyo iyaga dhex maraya waxa la rabaa sanadkan ummadda reer Somaliland inay muujiso ummad qaran leh nidaam leh dadnimo leh wax ay ilaashanayaan in uu jiro oo ah qarannimada Somaliland qarannimada Somaliland baa inaga wada dhaxaysa waxa la leeyahay waxa isku weyn ku yara kala qaybsanaanaynayo marka hore xaydaabkeenu ka wada muhiimsanahay xaydaabkeenu hagaajinaynaa gudida aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa qabanqaabada intii ay ka soo qabatay howlaha ay socodsiisay dadka waynu la socodsiin doonaa maalinba meesha ay marayso dadweynaha waxaanu leenahay guusheenu waxay ku xidhan tahay midnimadeena guusheena aynu itiraafka ku helaynaa Somalilandna ku nabadgelaysaa Somalilandna ku hirgelaysaa
waxay ku xidhan tahay midnimadeenna xisbi kasta iyo siyaasi kasta iyo qof kastoo somaliland ka danaynayo inuu xil siyaasadeed ka helo ama madaxweyne ka noqdo ama wax kale ka noqdo guushiisu waxay ku xidhan tahay maalmaha qarannimada iyo midnimada shacabka somaliland qaybta uu ka qaato aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaanu leenahay guul wanaagsan waa mahadsantihiin